Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada saaxiibayaal. Guul walba oo uu qofku gaaro waxaa asal u ah joogteynta. Waxaa la yiraahdaa qofka halka uu joogo iyo halka uu hiigsanayo waxa u dhaxeeya oo buundo u ah joogteynta. Waa mustaxiil inaad hadafkaaga iyo riyooyinkaaga gaarto joogteyn la'aan. Adiga kala dooro laba xanuun midkood. Xanuunka ka soo gaara joogteynta shay dan kugu jirto iyo xanuunka ka qoomamaynta wixii dantaada ahaa ee ku seegay. Cidda kala dooranaysana waa adiga. Muhiimadda joogteynta waxa inooga filan. Ummuna Caaisha ayaa la weydiiyey, camalkee ayaa loogu jecel yahay Rasuulka sallallahu alayhi wasallam? Waxay ka jawaabtay, camalka la daa'imo ama la joogteeyo. Maanta waxaan rabaa inaan kula wadaago muhiimadda ay xambaarsan tahay joogteynta. Igu soo dhawaado mowduuceena maanta. Soo dhawaada mar kale. Magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi. Haddii aad rabto inaad shay ku fiicnaato oo aad khabiir ku noqoto, aan dhahno tusaale ahaan inaad rabto inaad waxbarashada ku fiicnaato oo aad heer sare ka gaarto, ama inaad rabto jir dhiska oo aad ku haminaysid inaad jirkaaga dhisto si muuqaalkaaga iyo caafimaadkaaga uu u wanaagsanaado, ama sidoo kale inaad rabto inaad meel sare ka gaarto noocyada ciyaaraha sida kubadda cagta, maxay tahay sifada kaliya ee aad u baahan tahay inaad yeelato si aad u gaarto hamigaaga? Sifadaasi waa joogteynta, oo afka qalaad lagu dhaho consistency. Weligaa ma isweydiisay maxaan ugu fiicannahay samaynta caadooyinka xunxun sida salaadaha oo aan waqtigooda ku tukan, hurdada oo aan ku daahno subaxdii, shaqada ama waxbarashada oo aan ka daahno, isticmaalka telefoonka oo aan ku waalannahay xitaa haddii ay hawl muhiim ah inoo taalo, iyo wixii la mid ah. Maxaan ugu fiicannahay samaynta caadooyinkan xunxun? Sababtu waa waxaan si joogto ah ugu celcelinaynaa caadooyinka muddo dheer, heer aan la qabsannay, isla markaana ay caadina la noqotay. Haddii aad ku celceliso in salaadaha aadan waqtigooda ku tukan, maxaa dhacaya? Waxay ku noqotaa caado ilaa heer ay agtaada caadi ka noqoto in salaadaha ay isu kaa gaaraan, ama aad salaad tukato iyadoo salaadii ku xigtay waqtigeeda la joogo. Sidaa darteed, shayga kaliya ee haddii aan isticmaalno aan ku fiicnaanayno waxaas aan u isticmaalno waa joogteynta. Marka maxaa diiday inaan u isticmaalno awooddan joogteynta waxyaabaha wanaagsan oo aan nafteena iyo nolosheennaba ku horumarino? Haddaba su'aashu waa, sideen u joogteyn karaa ficilada aan ku gaari lahaa hadafkayga? Waxaan kula wadaagi doonaa insha Allah dhowr qodob oo haddii aad raacdo kuu sahli doono joogteynta howlaha muhiimka ku ah. Way sahlan tahay in qofku uu go'aan degdeg ah qaato, go'aankaas oo ku dhisan caadifad, laakiin inaad caddayso isla markaana sababayso waxa aad doonayso oo aad meel ku qorato waa muhiim, si mar walba oo aad ka cajisto hawsha aad u soo xasuusato. Hadafkaagu waa inuu yahay mid xaqiiqi ah oo aad xaqiijin karto. Haddii kale ahdaafta waaweyn ee aynan xaqiijin karin, waxa ka dhalanaysa inaan si fudud u niyad jabno oo aan isdhiibno. Qodobkan wuxuu xoojinayaa qodobkii hore. In aad bilowdo caado way sahlan tahay, laakiin inaad la qabsato oo aad ku celceliso aad bay u adag tahay. Sidaas darteed, isku day inaad wax yar oo fudud aad ku bilowdo si nafta ay u dareento guul iyo fudayd. Hadafkeenu waan kordhin karnaa, waana ballaarin karnaa markaan la qabsanno, laakiin wax yar ku bilow si aadan u niyad jabin. Qaabka ugu fiican ee aan u joogteyn karno shay waa inaan ahdaafteena u beddelno caado. Mar haddii shayga uu caado kuu noqdaana, xitaa uma baahnid inaad ka fikirto samayntiisa. Waxaad ogaataa in caadadu aysan si sahlan ku samaysmin. Waxaa la sheegaa in caadadu ay ku samaysanto ilaa 66 maalmood ama ugu yaraan 2 bilood. Marka ku dadaal inaad u dhabar adeegto oo aad lugaha dhulka ku xijiso inta shaygaas uu caado ka noqonayo. Wixii intaa ka dambeeyana wuxuu iska noqdaa sidaan soo sheegnay, waxaysan nafta cuslaysan oo ay si fudud ku qabato. Waa muhiim inaad xilli go'an u samayso waxaas aad rabto inaad joogteyso. Tusaale, haddii aad rabto inaad salaadaha waqtigooda ku tukato, si fudud xilli walba oo 5 salaadood ka mid ah, telefoonkaaga ku sadgarayso xusuusin 10 daqiiqo ka hor salaad walba. Taas waxay kaa saacideynaysaa inaad isku diyaariso salaada. Dhowr maalmood oo aad ku celcelisaana waxay kuu sahlaysaa inay caado ku noqoto, oo adigoo aan xusuusin u baahan aad salaadii isku diyaariso. Laakiin su'aashu waxay tahay, yaa u adkaysan kara oo ku celcelin kara ficilkaas inta ay caado ka noqonayso? Waxa u adkaysan kara qof go'aan leh. Marka aad wax cusub joogteynayso, waxa aad la kulmaysaa diidmo badan oo ka imaanaysa naftaada, hawadaada ayaana kaa mashquulinaysa hawshii aad waday. Waxaaba laga yaabaa in hawsha sidii aad moodaysay ay ka cuslaato. Marka waxaa qasab ah inaad dulqaad u yeelato resistancegaas ama iska caabintaas gudahaada ka imaanaysa, naftaadana ka ilaaliso hadallada taban ama negatifka ah. Ugu dambeyn, guushu waxay ka dhalataa isugeynta ficilada yaryar ee aad sida maalinlaha u qabato. Joogteyntu waa furaha guusha.